Raage Maxamed Maxamuud Xaaji oo murashax u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabduqaadir Washington oo Gaalkacyo jooga ayaa noo dhameystiray qodobkaas. Soo dhaweynta loo sameeyay musharax gudoomiyaha baarlamaanka Puntland sanada 2019 Raage Maxamuud Maxamed Xaaji ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. musharaxa oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport waxa uu salaan la dhex qaaday dadweynaha soo dhaweeyay. waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxgaradkii ka qayb galay soo dhaweynta loo sameeyay musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Raage. mudane musharax soo dhawow muradkaaga khayr ku soo dhawow gudoomiyaha baarlamaanka ku soo dhawow amniga iimaan ku soo dhawow nabadgelyo ku soo dhawow kii ummadda wax tara oo lagu liibaano oo shaqadiisa ka adkaada oo shaqadiisa ku soo baxo ku guulaysta Allah ka dhigo. waxaan si farxad iyo kal iyo laaba u soo dhaweynaynaa musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland 2019 waxaan leenahay musharax farxad baan kugu soo dhaweynay gobolka Mudug oo isku duuban rag iyo haween dhammaan waan ku soo dhaweynay aad baan gurigaaga kugu soo dhaweynay waxaan doonaynaa insha Allah Ilaahay ka baryaynaa hankaaga inaad ku guulaysatid hankaaga kii ku guulaystay Allah inuu ka dhigo. mudane musharax Raage ku soo dhawow wadankaagii hooyo ku soo dhawow musharax dhalinyaro adoo kala shabaab waa loo baahnaa dhalinyaro oo wax ka qabadka dalkana wax u qaban kara waa loo baahnaa annagu haddaan nahay guddigii dibadhuska garoonka Cawaale waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu ku soo dhaweynaynaa wadanka ku soo noqo. dhanka kale Raage Maxamed Maxamuud Xaaji musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo la hadlay shacabka ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta uu gudoomiyaha baarlamaanka Puntland isugu soo sharaxay. waxaan dabeecad u leeyahay wada tashi iyo isdhageysi waxaan filayaa sifaadka aan sheegay inay yihiin kuwa sababay saacadan oo qorraxda kulushahay inaad halkan isugu timaadaan una muujisaan hiilka aad u hilinaysaan Puntland uguna hilinaysaan qof kasta halka uu ku habboon yahay inaad ku taageeraysaan. walaalayaal waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto xilkaas gudoomiyaha baarlamaanka Puntland 2019 anigoo Raage Maxamed Maxamuud Xaaji waxaan ballan qaadayaa inaan ku xukumi doono oo golaha ku hogaamin doono wada tashi isdhageysi iyo go'aan qaadasho ku salaysan hoggaan suuban. waxa gabagabadii soo dhaweynta musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ee sanada 2019 ka hadlay maamulka gobolka Mudug. Allah kugu guuleeyaan kulleena waxaan kulleena Allah kugu guuleeyo kursigaas aad raadinaysid runtii aqoon baa kulleeno waad u qalantaa inaad xilkan iyo xil kale aad qabatid isla markaasna waan ku soo dhaweynaynaa dadkan maanta dhan qorraxda ku taagnaayeen ilaa iyo 3 saacadood meelahaas waxayna u taagnaayeen waa aqoon ay adiga ku leeyihiin iyo rabitaan adiga ay ku rabaan. Cabduqaadir Yaasiin Cabduqaadir Washington SBC TV magaalada Gaalkacyo.